Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamantiin saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo si walba muuqaalkan idiin soo gaarayo. kusoo dhawaada shabakada Samdimi. waxaa hore nagu socday koorsadeen aan ku barnaynay computer asset accounting-ka, gaar ahaan software loo yaqaan QuickBooks-ka. insha Allah maanta cashirkeena waxaan ka leenahay hal ujeedada ka leenahay. halkaas ujeedada waxay tahay inaan abuurno bank accounts. dukaanka haddii uu leeyahay akoon oo ku leeyahay sida dahabshiil oo kale akoon aad ku leedahay, ama Salaam Bank oo kale akoon ku leedahay, ama banki kaliya maahan. okay cash on hand xataa waa jira. okay يعني lacagta cadaanka ah oo dukaanka u taal iyadana waxaa loo yaqaanaa cash on hand. saddexdaas akoon aan abuuri doonaa. kusoo dhawaada cashirkeena. okay markii aan soo furno softwarekeena QuickBooks sidaan uu soo egyahay, waxaan rabnaa markii aan abuurno akoon saddex qaab oo abuuri karnaa. okay mid kastana waa inta doona insha Allah. mid kood inaad taabato chart of accounts oo inta ka soo qabanayso qaybta company agtiisa daa taabato, shaashada lista ku soo baxayso. waxaa si daawan doonta account meesha qoran tahay, kadib waxaad dhigi doontaa new. saas oo ku soo baxsan karta. sidii kale ku soo baxsan karta waxay tahay list inaad tagto, kadib aad kasii doorato chart of account, kadibna inta akoon ku soo dhufto new aad sii dhahdo. qaabka kale ku soo kacsan karta waxay tahay inaad dhahdo control+A ku soo bixi doontaa akoon ku soo dhufan doontaa new aad sii dhigi doontaa. okay marka new aad dhahdo waxaad dooranaysaa meesha qoran tahay bank. okay bank markaad doorato continue aad leedahay. wuxuu ku leeyahay akoonka magaciisa geli. okay waxaa iska dhahaynaa tusaale Salaam Bank. meeshaan description-ka waxaad gelinaysaa faahfaahin yar, haddaad rabto iska dhaaf kartaa. okay meeshaan waxaad gelinaysaa akoon numberka ay gelinaysaa. okay anaga wax been as gelinaynaa bis. okay kadib waxaad leedahay save and close. dada save and close oo samaysma ka xirma, laakiin anaga waxaan rabnaa inaan mid kale aan sameeyno. okay waxaan leenahay save and new. okay meeshaan waxaad gelinaysaa akoonka kale magaciisa gelinaysaa. okay meeshaan waxaad gelinaysaa faahfaahin yar, haddaad rabto iska dhaaf kartaa. meeshaan akoonka numberkiisa gelinaysaa. okay 111 iska dhaaf tusaalahaan save and new noo dhe. marka mid saddexaad aan rabno inaan sameyno waxay tahay cash on hand. cash on hand. okay kan wax dhan muu gelinaysa save and close adhaysaa marku dambeyso. okay save and close. okay saddexda akoon aan hadda sameyno ujeedaa saddex xabo ugu korayso. okay waa cash on hand, waa dahabshiil, waa Salaam Bank. mid kastana balancegiisa waa 0. okay haddii ay jiro bangi lacag ugu jirto tusaale ahaan dahabshiil oo kale mid kugu jirto, waxaa leedahay right click edit account aad dhehaysaa. edit account markaa dhahdo enter opening balance aad kusii furaysaa. okay statement ending balance lacagta kugu jirto ugu dambeysa meeqa $10 iska dheh. okay markaa lacagta gelis meeshaan wuxuu ku leeyahay waqtiga ugu dambeeyay goormuu ahay. meeshaan aad furaysaa tusaale anaga 9 bisha lasoo dhaafay, bisha hadda ku jirno 9 iska dheh. okay kadib save and close. hadda reports keena tagno ama inta uu jeedaa inuu $10 ku jirto. reports keena ka doona reports company and financial, kadib waxaa sii doortaa balance sheet standard. meeshaan waa inay soo gashaa $10 oo Salaam Bank nagu jirto. okay haddii aad ku dhufano aad dhahdo tobankan doonada kiimaad uu ku sheegaya opening balance. okay lacag oo opening yani markii abuuraysa opening ku ahayd waay. akoonadeen kale todoba ujeedaa waa 0. inta wax 0 soo qoray markaas dahabshiil iyo cash on hand labadaas waa 0. marka cashir ku xigana waxaan ku qaadan doonaa insha Allah si loo sameeyo investmentiga. halkaas waxaa ku eg cashirkeeni 6aad. fadlan haddii aad muuqaalka dhamaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto. waa Cabdi Baasit Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon inta aad tabin. subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliin walxamdu lillahi rabbil aalamiin.